in Bilaal Bulshaawi madaxweynaha TikTok ee la soo daayay shalay. Qamar Suugaani oo la sheegay in xabsiga Hargeysa loo taxaabay elboorka marka uu ka soo degay, taas oo runtii in badan ay sugayeen ciidamada Hargeysa in ay xiraan Qamar Suugaani maadaama uu Muqdisho in badan joogay, showyo ku qabtay, in badanna soo damaashaaday. Hargeysa ayaa runtii sharciga u yaalaya waxay tahay qofkii ka baxa oo taga Muqdisho in markuu soo laabto elboorka loo taagan yahay isla markiiba la qabto xabsiga noola taxaabo si runtii dacwadooyin badan oo ay ku leeyihiin ay u gutaan xabsigana bilooyin badanba laga yaabo qofkaas inuu kusii xirnaa. Waxayna yihiin fanaaniinta iyo dadka caan ayaa ugu daranba labadaas qofkii baxa oo Muqdisho taga oo runtii soo damaashaday showyo kusoo qabtaa aroosyo badan soo kala kiciya xabsiga ayaa liinta lagu cabsiinaya. Waana sharci u yaala Hargeysa taas oo fanaaniin badan runtii lagu xiray. Qamar Suugaani hadda kuma cusub in lagu xiro Hargeysa jeelka kuma cusub Qamar Suugaani sajalahay 2 mar ama malena 1 mar iska dhaba ayaa lagu xiray Hargeysa oo mar uu dacwado waxyaabo badan ay lagu qabsaday. Teeda kale ayaa waxay tahay in Bilaal Bulshaawi madaxweynaha TikTok ee la soo daayay shalay sida la sheegay dad badan ay sheegayaan in la soo daayay. Hargeysa madaxweyne Muuse Biixi ayaa sheegay in 24 hawras si degdeg ah Muqdisho elboorka loo geeyo Muqdishona loo diro si uu hoygiisa ugu laabto ehelkiisa iyo qaraabadiisa iyo taageerayaashiisaba ay runtii aad iyo aad ugu farxeen markay arrintaas ay maqleen. Runtii wuxuu xirnaa Bilaal Bulshaawi bilooyin badan ayuu xirnaa 2 bil ama 3 months ayuu xirnaa Bilaal Bulshaawi waxaana la soo daayay October bishan ayaan ku jirnay ayaa la soo daayay. Waana arrin runtii aad iyo aad ay ugu farxeen dad badan oo Soomaaliya taageerayaashiisa iyo ehelkiisaba ugu sii daran iyo qaraabadiisa ugu sii daranba ay aad iyo aad ugu farxeen. Qamar Suugaani runtii xabsigaas oo Bilaal Bulshaawi ka soo baxay ayuu runtii geli doonaa waana intuu ka soo bixi doono dad badan ayaa qiyaasaya waxayna leeyihiin bilooyin badan ayuu ku xirnaa doonaa sababtoo ah ninkaas waxaa loo hayaa dacwadooyin badan aad iyo aad u fara badan maadaama uu Muqdisho tagay aroosyo badan soo baashaalay haddana yiri Talyaaniga waxyaabo badan ayaa lagu haystaa runtii oo hadallo badan oo afkiisa ka soo fogtay. Runtii waana rajeynayaa in la soo daayo free Qamar Suugaani sababtoo ah waa nin runtii Soomaalinimada ku weyn tahay iska qalbi furan meel walba jecel inuu tago oo Soomaaliya ka tirsan. Hargeysana waa sharcigeeda ayaa iska sidaas runtii Soomaaliya ayay runtii waxay u aragtaa cadowgeeda koowaad waana arrintii laga xumaado. Waxaan leeyahay Muuse Biixi iska soo daay fanaanka Soomaaliyeed Qamar Suugaani free Bilaal Bulshaawi inta taageerto Qamar Suugaani free Qamar Suugaani soo dhaaf fadlan commentigana ku soo qora fadlan hadda channelka cusub tahay subscribe saar like share comment intaba